Dadku way jecel yihiin inay wax badan ka ogaadaan shakhsiyaddooda iyo wax uu cilmu nafsiga ka dhaxay, balse ilaa dhawaan ma kala caddeen noocyada shakhsiyadda ee jiray. Hadda 4 ayaa ugu dambeyn lagu soo koobay. Muddo sannado ah, khubarada qaar waxay u arkeen in shakhsiyadda la qeexo arrin iska khiyaali ah, balse baaritaanka cusub wuxuu soo saaray inay jiraan shakhsiyado kala duwan. Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday inay jiraan 4 nooc oo shakhsiyadood, waxayna kala yihiin qof iska caadi ah, qof xirxiran, qof qudayasho mudan iyo qof danaysta ah. Gadaal ayaan ka sharxi doonaa 4tan shakhsiyadood. Arrimaha lagu sheegay baaritaanka waxaa suuragal ah inay isbeddel weyn ku yeeshaan sidii aad u haysatay shakhsiyadda guud ahaan. Si kastaba, noocyadan waxay noqdeen kuwii ugu dambeeyey ee lagu soo koobay shakhsiyad, waana tallaabo horey loo qaaday. Qof kasta wuxuu leeyahay mid ka mid ah 4 dabeecadood oo ah kuwan cusub, waxaana lagu saleeyay sida ay dadku isku qiimeeyaan ee ah qof furfuran, qof wax kasta oggolaada, qof dib u socod ah, qof xanaaq badan iyo muran badane. In la fahmo qofka midda uu yahay waxay ku xiran tahay qiimeyn iyo saadaalin lagu sameeyo waxa uu qofka samaynayo, waxayna taa keeni kartaa halis dhanka maskaxda ah iyo in uu yahay qof aan reerkiisa dhaqan karin. Balse weli waxaa loo baahan yahay baaritaano dheeraad ah oo dhanka sayniska ah. Dadku way ku kala duwan yihiin 4 shakhsiyadood ee waaweyn. Marka aad eegto dhammaan waxa laga sawiran karo shakhsiyadda qofka sida dabeecadaha iyo arrimaha kale, weli waxay u muuqataa qiyaas aan kala socnayn. Haddii aan micneeyo 4 shakhsiyadood, qof iska dhexdhexaad ah waa shakhsiyadda ugu badan. Qofkan waxaa ku yar furfurnaanta iyo aqbalidda talooyinka, laakiin waa qof dhexdhexaad ka ah dabeecadaha kale. Shakhsiyadda labaad, qof xirxiran. Shakhsiyaddan qofkeeda waa qof feejigan, balse dareen iyo maskax ahaan degan. waa qof aan bulshada soo dhex gelin, balse talooyinka qaata, maskaxdiisana ay feejigan tahay. Qofka saddexaad waa qof qudayasho mudan. Dadka shakhsiyaddan leh waxa ay sida dabiiciga ah yihiin madax, diidmadooduna way yar tahay, aqbalidoodana way badan tahay. waa qof furfuran oo leh damiir naxa, waa qof dhegaysta fikradaha cusub, iskuna kalsoon. Shakhsiyadda afraadna waa qof danaysta ah. Qofkan waxaa ku badan lugooyada dadka, waa qof aan furfurnayn, khilaaf iyo dad badanna ku dhex jira. Cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in shakhsiyadahan aysan ahayn kuwa joogto ah. Qofku wuu isbeddeli karaa ama dhinac kale waa la beddeli karaa. Carruurta 10 sano jirada ah ayaa ku badan danaysiga, halka dadka waaweyn ay ku badan yihiin dadkoo lagu daydo. Taa waxay muujinaysaa in qofka markii uu sii weynaadaba ay shakhsiyadiisa isbeddelayso. Sidoo kale waxay arrimahan la socdaan caafimaadka. Dadka qaar sida kuwa leh shakhsiyadda dhexdhexaadka ah waxay leeyihiin xanaaq,